asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka Arabsiya News. Waa habeenimo Khamiis ah 6 August 2016. Waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu muhiimsanaa ee maanta gudaha Somaliland, Geeska Afrika iyo caalamka. Waxaad ku maqli doontaan xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira safarka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, weerar khasaare badan geystay oo ay Xuutiyiintu ka fuliyeen Yemen, iyo kulankii muhiimka ahaa ee Somaliland iyo Africom ay kaga wada hadleen iskaashiga amniga iyo difaaca. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkeenna, iyo kuwa kaloo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna oo fidsan. Wararka safarka madaxweyne Ciro iyo xogaha laga helayo ila madax bannaan. Inkastoo xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ay guud ahaanba ka gaabsatay in ay shaaciso halka uu ku wajahnaa safarka madaxweyne Ciro ee galabnimadii Isniintii ee bisha August ay ahayd 3, 2026 uu ka dhoofay magaalada Hargeysa siina maray Addis Ababa, haddana xogo si madax bannaan loo helaya ayaa sheegaya in madaxweyne Ciro uu habeenkii Salaasadu soo galaysay u hoyday Addis Ababa, subaxiina uga baxay dhanka iyo Nairobi. Xoguhu waxay tilmaamayaan in uu Nairobi u sii maray si uu safaaradda Maraykanka uga qaato fiisaha dalkaas, oo xoguhu ay sheegayaan in uu ku wajahan yahay Israa'iil iyo inuu kulan halkaasi kula lahaa safaaradda Israa'iil ee Nairobi, oo sidoo kalena xarun ay u tahay safiirka Israa'iil ay u soo magacowday Somaliland Ambassador Michel Lotter, oo halkaa ka howlgala safiir ahaan, maadaama aanu weli u soo wareegin caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. Xogaha laga helaya ila madax bannaan oo xidhiidh la leh xubno diblomaasiyiin aad ula socda xidhiidhka Somaliland iyo dalalka kale waxa ay sheegayaan in madaxweyne Ciro Nairobi u sii dhaafay dalka Imaaraadka, halkaas oo xoguhu ay tibaaxayaan in uu uga sii gudbayo dalka Maraykanka oo uu kulan madax sare ah kula yeelanayo, kaas oo dariiqa u xaadhaya kulan ballaaran oo ka sii heer sarreeya. Safarkan Maraykanka ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhashay socdaalkii uu Israa'iil ku tegey bishii 6 ee sanadkan, kuna shaaciyey in Somaliland safaarad ku yeelatay Qudus xilligii uu madaxweyne Ciro ku sugnaa Qudus. Waxa ilahani ay sheegayaan in khadka muuqaal aragga uu kulan isbarasho ah oo dowladda Israa'iil ay ka shaqaysay ay ku yeesheen labada madaxweyne Ciro iyo Trump, isla maalintaasna ay dhacday ballan kulan furaad ah oo Washington uu ka dhaco. Xoguhu waxay tilmaamayaan in ay socdaan dadaallo ay wadaan xubno saameyn weyn ku leh siyaasadda aqalka cad ee Maraykanka oo madaxweyne Trump ku xidhaya qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland. Sidaas oo ay xoguhu sheegayaan, haddana xukuumadda iyo madaxweyne Ciro waxa ay ku socdaan qaab aan hore looga baran xukuumadihii hore iyo hannaan dahsoon diblomaasiyadeed oo dhinacna tuuno iyo shaki gelin kara shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland. Xog la'aanta la xidhiidha safarada madaxweyne Ciro iyo ka muquurashada saxaafadda Jamhuuriyadda Somaliland xilliga uu soo noqdo mar kasta. Ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Yemen ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar ay kooxda Xuutiyiintu ay ku qaadeen xorooyin militari oo ku yaala bartamaha Yemen. Ilawareedyo ayaa sheegaya in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku dhaceen dhowr xero oo ay maamulaan ciidamada gurmadka degdega ah, kuwaas oo ku yaala aagga Al-Rawaik ee gobolka Marib iyo aagga Al-Abr ee gobolka Hadramaut. Wasiirka caafimaadka Qaasim Bihabi ayaa cambaareeyay weerarkaasi khiyaanada ah, isagoona sheegay in looga gol lahaa in lagu wiiqo amniga iyo xasiloonida, islamarkaana muu shaacin tirada dadka ku dhintay weerarka. Afhayeen u hadlay Xuutiyiinta oo gacanta ku haya inta badan waqooyi galbeed ee Yemen, islamarkaana ay taageertay Iiraan, ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen ciidamo militari oo Sacuudigu soo daabulay, kuwaas oo u diyaargaroobaya weerar dhanka militariga ah. Isbahaysi oo hogaamiye Sacuudiga ayaa taageerayay dowladda intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka socday. Ma jirin wax hadal ah oo degdeg ah oo ka soo baxay isbahaysiga ama dowladda Sacuudiga. Yemen waxaa ragaadiyay dagaal sokeeye oo bilowday sanadkii 2014, markaasoo Xuutiyiintu ay xukunka ka tuureen dowladdii fadhigeedu ahaa caasimadda ee Sanca. Colaadda ayaa sii xoogaysatay sanadkii 2015 kadib markii isbahaysiga Carbeed oo uu hogaaminayay Sacuudigu ay soo farageliyeen xaaladda, iyagoo isku dayaya in ay soo celiyaan maamulkii dowladda.
wafdi heer sare ah oo ka socda jamhuuriyadda somalilan oo hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga maxamed yuusuf cali ayaa booqasho rasmiya ku tegay xarunta taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom oo ku taala magaalada stuttgart ee dalka jarmalka ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhinaca difaaca amniga badda iyo xasiloonida geeska afrika sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga somalilan. wafdiga somalilan ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha somalilan arminaal axmed hurre hariir. labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii loo ballaadhin lahaa iskaashiga difaaca ee u dhexeeya somalilan iyo maraykanka loona horumarin lahaa awoodda hay-adaha amniga iyo ciidamada somalilan. war-saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay kulankani waxa uu diiradda saarayaa xoojinta xiriirka istiraatiijiga ee somalilan iyo maraykanka iyadoo laga wada hadlay sidii loo ballaadhin lahaa iskaashiga difaaca iyo korna loogu qaadi lahaa awoodda hay-adaha amniga. kulankan ayaa sidoo kale si gaar ah diiradda loogu saaray amniga marinbiyoodka baabalmandab iyo badda cas kuwaas oo ka mid ah marinada ganacsiga ugu muhiimsan dunida. mas-uuliyiinta ayaa isla falanqeeyey sidii loogu hortagi lahaa khataraha sii kordhaya ee ka jira badda loona xaqiijin lahaa badbaadada maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga ah ee mara marinbiyoodka muhiimka ah. badda dhinac ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan xoojinta nabadda iyo xasiloonida geeska afrika iyagoo carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo awoodda ciidamada iyo hay-adaha amniga si ay uga jawaabaan caqabadaha amni ee gobolka. wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan waxa ay sheegtay in kulankan lagu soo gebagabeeyey isfaham hordhaca kaas oo lagu sii ballaarinayo iskaashiga dhinacyada difaaca iyo dhismaha awoodda hay-adaha amniga. saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray isfahamka hordhacahay wuxuu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo amniga badda iyo doorka somalilan ee ilaalinta amniga gobolka iyo kan caalamka. kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordhayaan wada shaqaynta dhinaca amniga ee u dhaxaysa saraakiisha maraykanka iyo mas-uuliyiinta somalilan. kulankan ayaa sida ay qabaan falanqeeyayaashu ay ku tilmaameen kulan muujinaya in somalilan ay sii xoojinaysa xiriirkeeda dhinaca amniga iyo difaaca ee ay la leedahay maraykanka gaar ahaan marka la eego muhiimadda istiraatiijiga ee baabalmandab iyo badda cas oo maanta ka mid ah meelaha ugu xasaasisan amniga iyo ganacsiga caalamiga ah. daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareedinteena warkan warkaya kulmi doona waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horreysa ood ku dirtana waa free. macmiil noqo mulkiile warshadda daqiiqda ee borderi milis waxaad ka heli kartaa 1 kilogaram 5 kilogaram 12 kilogaram iyo badh dhammaan dukaamada hargeysa dhowaanna filo burco iyo boorama. haddaba ka waran haddaad ka faa'iidaysato maciishadaad maalin walba iibsato ka soo qaybgal saamiga lagu maalgelinayo soo iibsiga qamadiga xogta maalgashiga kooban soo gaadh borderimilis.com oo booqo ciwaanada iyo nambarada shaashadda kaaga muuqda.